xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee la magac baxay badbaado oo kulan magaalada Muqdisho maanta ku yeeshay ayaa dhaliil waxa ay u jeediyeen dhismaha xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid hoggaanka u yahay iyagoo sidoo kale xildhibaanadu ay si cad u sheegeen in xukuumadda cusub aysan codka kalsoonida ah aysan ka heli doonin xildhibaanada ku jira kudladan kulanka oo saxaafadu ay dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday kadib waxa si wada jir ah saxaafada ula hadlay qaar ka tirsan xildhibaanadii ka soo qayb galay kulanka iyagoona ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka golaha badbaado qaran ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo 93 gaarayo inta maanta halkan isugu timid waxa laga hadlayay la qiimeynayay golaha usoo xukuumadda usoo dhisay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid shalay waraas baxay guddiga fulinta gudoomiyahooda iyo rag badan oo guddiga fulinta kamid ah sii daayeen hadalkaas oo dhahayay golaha badbaadada ma ka helayaan xukuumaddaasi dhinacyo badan markii laga fiiriyey wax hore ka heli mayaan waxa sheegay inuu madaxweynaha Soomaali u dhaxa inuu noqdo koox yar baa guntiga ugu jirto kooxdaas uu marba soo dhigay marka waxa la keenaba marka xukuumadda timaadaba waa kooxdii Ra'iisul Wasaarahana waxa sheegay waati gaal iyo muslimba meesha la isugu yimaado lagu wada hadlay leeyahay dawlad laba garba hal dhiso loo leeyahay waxa sheegtay dawlad loo leeyahay inuu dhiso kooxdii tii hore riday ee tii ku xigtay riday ayuu u keenay annaga hadla sheegi maayo hadaba cod siinayno annagoo ah xildhibaanada beesha sida mareexaan ee ku matalaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan dareen ka muujinaynaa qaabka uu Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid u xulay xukuumadda cusub taas oo aan aaminsanahay inaysan waafaqsanayn hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed ee ku heshiiyeen isla markaana aan cadeynayno inaan ku qanacsanayn